xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maalmo badan ayaa loo diyaar garoobay oo la sugayay in uu ka soo dego garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdigiisu markay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweyne ku-xigeenada iyo sidoo kale xubno ka mid ah labada gole ee Jubbaland ururada bulshada rayidka iyo ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo iskugu jira kuwa Jubbaland iyo militariga Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa markuu salaan sharaf ka qaatay ciidamada ayaa wuxuu salaamay bulshada kala duwaneed ee soo dhaweysay waxaana intaasi kadib loo gudbiyay qaybta VIP-da ama qaybta khaaska ee nasashada garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa halkaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in ra'iisul wasaare khayre uu soo gaaro markii labaad magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan isleeyahay waa marti kuma tihiin waa deegaankaagii waa timid waa dalkaagii waa dhulkaad ra'iisul wasaaraha u ahayd aad baan ugu faraxsanahay inaad timaado haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka ah waa dowladda Soomaaliyeed oo isteedyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas-uulka ka ah marka inuu socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteedyada waxoogaa waa arrin iska jirta wey taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaydan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddeedii saaran ay tahay dhulkaad xukuntaan ay tahay ku soo dhowaada waxaana rajaynayaa insha allahu inaan wixii wada hadale iyo mudane xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa u mahad celiyay guud ahaanba bulshada soo dhaweysay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu imaado magaalada Kismaayo asagoo sheegay in uu maalmo badan ku sii sugnaan doono magaalada Kismaayo ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyana ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo raynrayn waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardargelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda ah waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa intaasi kadib loo soo galbiyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana la keenay bartamaha magaalada Kismaayo xaafadda Farjano gaar ahaan argada oo meesha loogu talagalay in uu kula hadlo bulshada magaalada Kismaayo halkaas ay ku sugnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo soo xiray guud ahaanba ganacsigoodii si ay uga qayb galaan soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Mas'uud Cabdullaahi TV Universal magaalada Kismaayo.